الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Iran oo mar kale ku celisay in aysan wax wada xaajoodaha ka galeen gantaaladeeda arrinkan ayaa si weyn wuxuu uga noqon doonaa udub dhexaad wadahadallada ay ku leeyihiin aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wadahadalladaasi oo haatan socda ayaa waxa la sheegayaa in Mareykanka iyo Israa'iil mowqif cad ay ka qaadan doonaan arrimaha Iran Amirka dalka Qatar ayaa waxa gordhawto telefoonka uu kula hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kalena wadahadalladaasi kadib waxa magaalada Doha uu ku qaabilay xogayaha golaha amniga qaranka ee dalka Iran Ali Larijani oo socdaal ku tagay dalka Qatar wararkii ugu dambeeyay xaaladahan iyo xiisada imika taagan ayaa idin soo gudbinaynaa sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegaynaa Ruushka oo digniin ku bixiyay in tilaabo military uu qaadi doono haddii wadamada reer galbeedka ciidamo ay geeyaan jasiiradda Greenland oo Trump uu doonayo in uu la wareego dalka Ethiopia gobolka Amxaarada ayaa la sheegayaa duqeymo inay ka dhaceen saacado uun kadib markii magaalo ku taal gobolkaasi ay la wareegeen xogaga Fano oo ka soo horjeeda dowladda federaalka dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii wara ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno iyo falaqayntii ayaan idinkugu haynaa barnaamijka wararka caawa soo gudbinta barnaamijkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir maxamed maxamuud cabdi oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay in Iran barnaamijkeeda plastikada uunan ka mid noqon doonin wada xaajoodka dowladda Mareykanka lala galayo bayaan uu soo saaray oo ku aadan xuska 47 guurada markii kacaanka islaamiga ee Iran uu xukun qabsaday ayaa uu ku sheegay in cid soo fargashan karta haba yaraatee aysan jirin mashruuca gantaalada ee Iran gantaaladeena ma aha buu yiri mowduuc wada xaajood gali kara mar wax laga weydiiyay waqtiga iyo goobta wareegga labaad ee wada hadallada Mareykanka lala galayo uu dhici doono wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa hoosta ka xariiqay inaan waqti iyo meel intaba weli la go'aamin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska Iran lala galayo uu saameyn doono barnaamijkeeda nukliyeerka iyo sidoo kale mashruuca ama barnaamijka gantaalada plastikada Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda kulan kula jira ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo raadinaya inuu ka dhaadhiciyo dowladda Mareykanka inay cadaadis dheeraad ah saarto Iran iyadoo xiisadda gobolka bariga dhexe ee cirka isku sii shareerayso Trump ayaa fariino isku dhafan u diraya Iran sheegaya inuu ku rajawan yahay in heshiis diblomaasiyadeed Iran lala gaaro halka uu digniin bixinayo laga yaabo inuu talaabo military qaado wadahadallada ayaa uu la yeelanayo hadda kula jiro ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa kulankii toddobaad ee labada dhinac dhex mara ka horreeyay kan waxa uu ka dhacay Quds Oktoobartii la soo dhaafay in yar ka hor inta aan la gelin heshiiskii Sharm el-Sheikh kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib dowladda Mareykanka iyo Iran ayagoo wada xaajood Cumaan ku yeeshay Trumpna uu ku dhawaaqay qorshe la xiriira in waji labaad oo wada hadal ay yeelan doonaan Netanyahu ayaa sheegay heshiis kasta oo lala garo Iran ay waajib tahay in lagu daro in la xadido barnaamijkooda gantaalada isla markaana la soo afjaro taageerada uu fadhiyaan ururada hubeysan ee ka jira gobolka bariga dhexe barnaamijka gantaalada Iran ayaa walwal weyn ku haya Israa'iil iyadoo gaari karaya Israa'iil oo dhan isla markaasna bartilmaameedsaday dagaalkii 12 maalmood ahaa goobo military oo ku yaalay Israa'iil ra'iisul wasaaraha Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ayaa kulan la yeeshay Ali Larijani oo ah gudoomiyaha golaha amniga qaranka ee waddanka Iran waxayna ku kulmeen magaalada Doha waxayna ka wada xaajoodeen dadaalada
xaaladda iyo xiisaha bariga dhexe cirka isku sii shareeraya hoos loogu dhigi lahaa. sida laga soo xiganayo bayaan uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sheekh maxamed ayaa lagu nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay in dadaal badan la galo sidii loo baajin lahaa in gobolka ay dadkiisu ay dhibaato soo food saarto. kulanka ka hor Larijani ayaa kulan la soo yeeshay amiirka waddanka qatar, kadibna waxa uu sidoo kale kulan kale ku soo yeeshay booqasho uu ku tegay Cumaan. militariga Israa'iil ayaa soo saaray bayaan ay ku sheeganayaan in ay dileen xubin ka mid ah ururka Xamaas, Basil Xamaadi, oo duqeyn xagga cirka lagu dilay. waxaa lagu eedeynayaa Xamaadi in uu mas-uul ka ahaa sanadkii 2004 weerar ka dhacay Biir Shacb oo bas lagu qarxiyey 16 Israa'iiliyiin ay ku dhinteen. ninkaasi ayaa la xiray waxaana lagu soo daayay 2011 heshiis Israa'iil ay kaga bedelatay 400 oo maxaabiis askariga la oran jiray Gilad Shalit. Xamaas ayaanan wax wara ka soo saarin wararkan ay Israa'iil soo sheegayso la xiriiray inay khaarijisay mid kamid ah mas'uuliyiinta ururka Xamaas. Israa'iil ayaa wada inay xadgudub joogto ah ku samayso xabad joojinta marka laga gudbo in xabad joojintaas la saxeexay Oktoobar 10keedii sanadkii hore. wararka caalamkan waxaa ka mid ah Ruushka ayaa digniin ku jeediyey inuu tallaabo filcilin qaadi karo haddii oo ay ku jirto tallaabo military haddii jasiiradda Greenland ay noqoto meel reer galbeedku ay u isticmaalaan nidaam military. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay Ruushka in uu ka jawaabi doono arrintaas haddii awood cusub oo military jasiiradda Greenland la soo dhigo oo lagu wajaho waddanka Ruushka. isagoo la hadlayay baarlamaanka waddanka Ruushka ayaa Lavrov waxa uu sheegay Ruushka inuu tallaabooyin munaasaba oo arrinta looga hortagay qaadi doono ay ku jirto tallaabo military oo looga jawaabayo reer galbeedka militarigiisa hadday isku ballaariyaan jasiiraddan dhulka qabow ah ee Greenland. hadalladan ayadaa soo baxaya iyada oo tartanka xagga istiraatiijiga ah ee badaha qabow ee gobolka uu bilowday, iyadoo baraf badan oo dhulkaasi ka dhalaalayo oo ay soo baxayaan khatad cusub ay maraakiibtu marto iyo khayraad fara badan oo dabiici ah. wadamada reer galbeedka oo ka mid yahay Mareykanka iyo xulafada NATO ayaa aad u daneynaya inay xoojiyaan joogitaankooda badda qabow, waxaana soo xiganayaan arrimo amni iyo kuwa dhaqaale walwal la xiriira. Ruushka ayaa ku celcelinaya digniin ka dhana haddii NATO ay isku dayda inay isku ballaariso inay ciidamo geyso meelo ku dhow xuduudkiisa in khatar qarka loo saaran yahay xiisadda cirka isku sii shareeraan oo lagu yareysanayo xasiloonida gobolka. duqeyn xagga cirka ah ayaa lagu soo waramayaa in ciidanka cirka ee Ethiopia ay ku qaadeen magaalada Dibritaba kadib markii magaaladaasi la sheegay in ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada mucaaradka Fana. waxayna noqonaysaa in dagaalka labada dhinac u dhaxeeya uu daldalgalay. wararka maxalliga ayaa tilmaamaya in ciidamada qaranka ee difaaca Ethiopia ENDF ay ka gurteen dhowr tuulo maalmihii ugu dambeeyay ayagoo u ogolaaday dagaalyahanada ka tirsan mucaaradka inay la wareegaan. Dibritaba ayaa la aaminsan yahay inay tahay magaalada ugu ballaaran oo hadda gacanta u gashay ciidamada Fana. wararka ayaa sheegaya in duqeynta xagga cirka ay imaanayso markii dagaalka labada dhinac u dhaxeeyo ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka uu gobollo badan oo deegaankaasi ka mid ah oo ka daldalgalay. walwalka ayaa aad u sii ballaaranaya la xiriira in dadka rayidka ah dagaalka in uu ku gaaro magaalooyinka. dadka la socda arrimahan ayaa ugu baaqaya dhinacyada in ay joojiyaan weerarka khatarta gelinaya dadka rayidka ah lana xushmeeyo qawaaniinta caalamiga ah ee bini'aadanimada.
waatay maxamed aad baad u mahadsantahay daawadayaashu way mahadsan yihiin mar kale ayaan daawadayaashana soo dhaweynaynaa waxaan u gudbaynaa goordhow daawadayaal falaqaynta wararka iyo wixii waraa degdega soo kordha ha yeeshee aynu ku hakanno qadii wararka caawa maxamed aan ku bilowno wadahadalladan aqalka cad ay ku leeyihiin Trump iyo Netanyahu waa markii toddobaad in ka yar 12 bilood oo Trump uu booqanay aqalka cad macnaha bishii January sanadkii hore intii xafiiska uu qabtay 20keedii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sanadkii 2024 markii toddobaad ayuu booqanaya dad badan arrintan waxay leeyihiin arrintan waa arrin la xiriirta arrinta Iran ba ugu muhiimsan ee xaaladda gobolka bal inooga waran maxay qobrada arrintan ay ka tiri qorada walwal weyn ayay ka muujinayaan in Israa'iil ay ku adkaysanayso Mareykanka in uu burburiyo barnaamijka nukliyeerka ee waddanka Iran haddii Iran diido barnaamijkeeda nukliyeerka inay joojiso isla markaasna in la xadido gantaaladeeda meesha ay gaari karaan oo ay diido in ay joojiso caawinaadda ay siiso ururada hubeysan ee gobolka jira Iran si cad ayay u sheegtay in aanan marnaba qodobadaasi aan lagu soo dari doonin wadahadallada kulankii dhacayna waxaa laga hadlay oo kaliya barnaamijka nukliyeerka haddana waxaa muuqata kulankan labadan hogaamiye Netanyahu iyo Trump ay yeelanayaan in lagu go'aamin doono waxa xiga ay yeeli doonaan laakiin waxyaabaha isu soo taraya ayaa waxay tahay ilaa iyo hadda Israa'iil waa diidan tahay xabad joojintii marinka Gaza inay u hoggaansato waxa ay rabtaa sida iyada wax u rabta in la yeelo Mareykanka qorshihii uu waday muddada dheer uu ka shaqeynayay qabiiro badan ayaa waxay leeyihiin waxa laga yaabaa inay fashilmaan way adag tahay in ururka Xamaas hub laga dhigo sida Israa'iil ay ku andacoonayso Xamaasna si cad iyo mowqif cad ayay qaateen cid nagala hadasho hub ma jirto iyo cid aan kala hadlayno sidii hadalka u dhigeena dagaalkii 2 sano socday wixii lagu waayay uma badna in wada xaajood iyo siyaasad lagu meelmarin karo tan Iran la xiriirtana Iran waad arkaysaa gudoomiyihii golaha amniga qaranka Ali Larijani ayaa gobolka booqasho ku maraya waxaana muuqata go'aanka uu Mareykanku qaadan doono ayaa isha lagu hayaa ilaha qaar waxay leeyihiin Mareykanku wuxuu rabaa waxa afka Ingiriiska lagu yaqaano face saving ama in wajiga biyaha looga celiyo oo xogaa tanaasulaad Iran samayso Iranna waxay leedahay tanaasulaad haddii aan bilowno xagee ku dhamaanaya Mareykanka horta waxa la leeyahay wixii uu kari karo horta iyo meeshuu gaaro waxaana muuqata kulankaasi in uu labada dhinac mid u dhici doono in dagaal uu horseedo dagaalkaasna uu dagaal goboleed noqdo iyo in wada hadallada qaybta labaad ee madaxweynaha Mareykanka uu tanaasulaad aan la filin sameeyo oo ay ka mid tahay in ciidamada uu soo dhoofay deegaanada ku dhow Iran oo ka qaado ilaha qaarna waxay sheegayaan Iran waxyaabaha dalabta ayay ka mid tahay arintaasi oo hadalka say u dhigeen anagoo nala handadayo iyo ciidankaaga halkan soo dhoofay wada hadalka ma yeelin dhinacay taaba wada hadalkan 3 maalmood ee la soo dhaafay waxay ahaayeen wax aad loo sugayay kulankii hadda uu socdaa waxaan ka dhur sugaynaa waxa ka soo baxa waa gartay way arrinka aynu dul istaagno gantaalada dagaal haddii uu dhaco waxa leeyahay Mareykanku waxa suurtagal ah in diyaaradihiisa xitaa B2 Iran dhulka ay soo dhigto arrintaas wax qobarada ka tiray inoo gudmar Maxamed arrinta gantaalada laftigeeda haddii xitaa ay timaado in la furo faylkaas inkastoo Iran hadda aynu maqlaynay wasiirka arrimaha dibadda oo la furi maayo Iran ma iman karta inay tiraahdo waayahay hadda anagu gantaaladeena 400 kilomitir aan ku ekeynayno diyaaradaha Israa'iilna ha lagu ekeeyo inaysan xuduudooda dhaafi karin doodaas ma iman karta adoo ku hormaraya arrinta B2 waxa laga yiri Scott Ritter oo ah nin qaramada